Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku baran doonaa sida aad sawiraantaada uga dhigi lahayd ruux duq ah ama ruux gaboobay, oo wejiga aad uga bedeli lahayd oo duq aad uga dhigi lahayd ama aad ilmo yar uga dhigi lahayd. Haddaba haddii markii ugu horeysa aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. Sidoo kale muuqaalkan like saar si uu u gaaro dad fara badan. Hana ilaawin inaad asxaabtaada la wadaagtid. Kusoo dhawo muuqaalka faahfaahsan. haddii aan muuqaalkeena horey u galle applicationka aan ku sameynayno magaciisa waxaa la dhahaa face app ayaa la dhahaa. Play Store-ka haddii aad soo gasho kadibna qaybta searching aad ku qorto face app, applicationka waa kana Play Store-ka ayuu ku jiraa. Sidoo kale linkigiisana description-ka ama commentiga ayaan soo dhigayaa, marka halka ayaad kala degeysaan. Sidoo kale applicationka internet ayuu ku shaqeeyaa. Marka applicationka ayaad soo furanaysaa, kadibna markuu sidatan kuu keeno waxaad ku dhufanaysaa qaybta hoose ee gallery ku qoran tahay. Qaybta ayaad ku dhufanaysaa, kadibna sawirkaad rabto inaad hagaajiso ayaad soo qaadanaysaa. kadibna markuu sidatan kugu soo galo waxaad rabtaaba inaad ka dhigto wejiga nin duq ah oo macnaha gaboobay. Haddaba wax yar ayaad saan usoo wadaysaa, kadibna waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku qoran tahay h ayaad ku dhufanaysaa. kadibna waa kuwana, kan waa ilmo yar oo waad aragtaan, kana waa ku xiga isaguna. Haddaba saad uga dhigta nin duq ah, hoose ayaad saa ugu soo wadaysaa, kadibna qaybtaas ayaad ku dhufanaysaa. haddaba waxaad ujeedaa Asad Xaajiyo wejigiisa inuu nin duq noqday. Haddaan saa uga qaadno wakaa waa Asad Xaajiyo, haddaan sii daynana saa ayuu noqday oo qofka gaboobay ayuu noqday. Haddaba markaad rabto inaad seefto kadibna waxaad ku dhufanaysaa uun qaybtaas ay apply ku qoran tahay. qaybtaa umaad ku dhufanaysaa apply, halka ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Aniga hadda ma rabo inaan seefo, kadibna waan ka baxayaa. kadibna qayb kale ayaan ku dhufanaynaa, waxaan rabnaaba inaan timaha ka xirno. kadibna waxaan ku dhufanaynaa iyadana qaybtaas ayaan ku dhufanaynaa. markaas aad usoo gasho wax yar ayaa soo wadaysaa. haddaad rabto inaad timo badan u yeesho kan ayaad ku dhufanaysaa. tusaale ahaan kan ba aan taabto, kadibna wax yar ayaad sugaysaa. wakaa Asad Xaaji madaxiisa soo noqday, timo badan u yeesho. haddaan ka qaadno sida taayo, haddaan ku sidaynana sida ayuu noqday. haddaan xaggan usoo yar wadnana waa kana timaha ayaan rabnaa inaan ka xirno, marka kan ayaan ku dhufanaynaa. markaas aad ugu dhufato kadibna wuxuu leeyahay xayeysiis soo yar daawo, kadib ayaa lagu sameynaya. marka halka ayaad ku dhufanaysaa. kadibna markuu kuusoo dhameeyo waa kana wejigiisa sida timihi ayaan ka xirnay oo timi ma laha. haddaan qaybtaa taabto wakaa timihiisi dhaadheera. haddaan ka qaadana wakaasi wuu mulukeysan yahay. marka haddaad si aad u seefto halka amaad ku dhufanaysaa apply, sidaan hore soo sheegnay. apply amaad ku dhufanaysaa. marka apply aan dhaho, marka timiha ayuu kasoo xiray. tusaale waxaan rabaa inaan garh u yeelo, kadibna waxaan ku dhufanayaa iyadana qaybtaas ayaan ku dhufanayaa. marka qaybta aan taabano, kadibna waxaan rabaa inaan garhkaas u yeelo. garhka inaan u yeelo ayaan rabaa, kaas korkiisa ayaan taabanayaa. kadibna wakaas garh ayuu yeela. haddaan ka qaado saa ayuu ahaa, haddaan ku sidaayana waa sidaa. marka xaggan haddaad u raadisana qaybo badan ayaa ku jira. tusaale ahaan garhka waad ka xiri kartaa. tusaale ahaan kan baan taabto, kadibna sidoo kale muuqaalkii soo daawo unbuu kuleeyahay xayeysiis yar soo daawo. kadibna xayeysiiska ayaa daawanaysaa, waa lagu sameynayaa. kadibna markuu ku dhameeyo cancel baa iska soo dhahaysaa. waa kana garhkii ayuu ka xiray Asad Xaaji. haddaan saarna sida ayuu ahaa, haddaan ka qaadnana sida ayuu garhka uga xiray. marka foolxumaan ayuu noqday, waan ka daynaynaa, cancel ayaan dhahaynaa. shaarub kaliya haddaad rabto inaad usoo yeeshana wakaas qaybtaas ayuu ku yaalaa. markaas cancel ayaan iska dhahaynaa. haddaad rabto inaad qof dumara ka dhigtana qaybtaas umaad ku dhufanaysaa iyadana. qaybtaa umaad ku dhufanaysaa iyadana. kadibna waatana aynu tanba ku dhufano, qaybtan baan ku dhufano. kadibna wakaa Asad Xaajiyo qoftaas yar ayuu noqday. haddaan saa uga qaado wakaa Asad Xaajiyo, haddaan sii daayana saas ayuu noqonayaa. marka cancel ayaan dhahaynaa. haddaba marsi aad u seefato waxaad ku dhufanaysaa qaybtaas kore ayaad ku dhufanaysaa. kadibna save ayaad dhahaysaa. kadibna wuu kuu seefayaa oo galleryada ayuu kugu shubayaa. haddaba laakiin hal cilad ayaa jirta.
ciladana waxaa weeyaan wuxuu wataa watermark oo magac ayaa ku qoran. Haddaba magacaas sideen uga qaadi karaa? Waad ka soo baxaysaa kadibna waxaad soo galaysaa PixArt. PixArt-gaasna kuwan kale Play Store-ka ku jira kuma sameynayaan, marka kan oo kaliya unbaa kuu jaraya. Kan ayaad soo galaysaa, kana linkigiisa waxaan kuu soo dhigayaa maadaama uu jabsan yahay, application-ku uu jabsan yahay oo waa mod. Marka linkigiisa waxaan soo dhigayaa Telegram-ka ayaad ka dejisanaysaan, oo haddaan soo dhigo commentiga ama description-ka marka copyright ayaa lagu qabanayaa. Marka application-ku jabsan yahay qaybta ayaa soo dhigaya, halka ayaad kala degaysaan. Kadibna markaad seetan soo gasho skip ayaad iska dhahaysaa kadibna markaad seetan usoo gasho application-ka waxaad ku dhufanaysaa plus-ka yar ee laga soo geliyo sawirada. Kadibna seetan soo baxaysaa oo sawirada gallery kugu jira ayuu ka keenayaa. Kadibna sawirkii ayaan soo qaadanaynaa. Kadibna markuu seetan sawirku soo baxo qaybtaas waxaa ku qoran loogadoodii ayaa ku qoran oo face app ayaa ku qoran. Kadibna waxaan ku dhufanaynaa qaybtaas ayaan ku dhufanaynaa tools ay ku qoran tahay. Kadibna waxaan ku dhufanaynaa qaybtaas ay remove ku qoran tahay. Kadibna wax yar ayaad usoo dhawaysanaysaa qaybtan. Kadibna waxaa loo baahan yahay inaad intan ay ku qoran tahay magac aad saa u mariso. Kadibna aad qaybtaas ay remove ku qoran tahay ku dhufato remove. Kadibna wax yar ayaad sugaysaa uu kaaga tirayaa. Haddaba saad u jeedaan uu ka tiray oo meeshan halkan wax looga aado kuma qora. Waa kana hadda uu inooga tiray. Kadibna waxaad ku dhufanaysaa qaybtaas saxda ah. Kadibna waxaad kasi dooranaysaa qaybtaas yare haddana fallaadha. Kadib waxaad ku dhufanaysaa gallery-da. Kadib sida taa ayaad ku haysataa sawirkii oo bilaa watermark ah. Haddaba saaxiibayaal sida taa ayaa loo sameeyaa. Haddaba haddii tahay markii ugu horeysa soo booqato channel-kan, fadlan subscribe saar, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. Sidoo kale muuqaalkan like saar si uu gaaro dad fara badan. Aad iyo aad baad mahadsantahay. Intaan muuqaalkan iyo muuqaalka wixii aan kaga kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.